السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan galab wanaagsan wax kasto ay ku tahay ba wanaagsan kusoo dhawow channelka Surubiyan channel. Akhyaarteeda sharafta leh maanta waxaan idin qaybsanayaa bariis yar oo aad iyo aad u fudud aadna u macaan waxyaabaha aan ku daray baan halkan waxaan ku haystaa xawaajigeena dhuudhuubka ee bariiska lagu daro iyo bay leafkaas yahay la karkaysan meeshaan waxaan ku haystaa waxa waaye waa toon iyo basal aan isku soo jeeday saliid kama maqna cusbadiina waa taas ama milixdii waxaan isla soo aadaynaa dhankaas iyo digsiga waana dafkii digsiga saarnay sida caadada ahaydba akhyaarteeda waxa aan karinayaa waa bariiskan ma ku karin doono wax hilib ah ama wax chicken ah waxaan ka karinayaa kaliya waxa weeyaan xawaajiyadaas iyo basashaas ayaan ku karinayaa waana arki doontaan bariiska ka soo baxa ee quruxda badan ha ka degdegin fiidiyowga ilaa dhamaad ilaa bilow harjeenaya inaad daawatid sida aad u aragtid bariis fudud oo aan lagu karinin wax hilib ah dabcan hilibka waxaad ku karsanaysaa ama digaaga ama wixii markaas aad ugu tala gashid gaar ayaad u karinaysaa marka aniga waxaan sameynayaa hadda waa bariis yar oo fudud maasha Allah tabaarakallahna aad iyo aad u macaan qudaarteedii ama xawaajiyadii iyo basashii ayaan wax yar isku soo shiilay sidii aad arkayseen haddana waxa aan ku darsanayaa waxa weeye bariiskii oo aan soo dhaqay ayaan ku soo darsaday maasha Allah tabaarakallah waaye ilaa wadaan siino siyaad intii aan haysanina waxa aan ku soo daray waa cusbo ama milix insha Allah hadba sidii aad u taqaanid kadib waxaan sameynayaa bariiska iyo xawaajiyadii iyo basashii waxaan sameynayaa cabaar ayaan isku qalaynayaa ama aan isku shiilayaa insha Allah waxaan rabaa inuu bariisku shiilmo ama u qalaysmo kadib waan ka tagayaa cabaar ayaan ka maqnaanayaa dabkana ogow uma dheere ee meel dhexaad ayuu u yahay sida uusan kaaga gubanin maadaama aad shiilaysid cabaar yar kadib waan kusoo noqday waana walaaqay waa kaasa maasha Allah tabaarakallah carafta waxaan ku dhahay kaala iska arag waaye hadda waxaan rabaa in aan ku darsado caanahan coconut milk ama caanaha laga sameeyo qumbaha ayaan kusoo daray sida aad arkaysiin haddii aadan haysanin caanaha qumbaha caanaha dhanaan waad isticmaali kartaa ee loo yaqaano caanaha garoorka oo kale ayaad isticmaali kartaa haddii aad caanaha qumbaha haysatidna waa kaasa waxaan rajeynayaa bariiskan aad ka heli doontid sidaan fudud aan u kariyey soona tijaabin doontid insha Allah waa kaasa biyo badan uma baahni inaan ku daro intaas yartaa ee biyaha ayaan ku daray kadibna waxaan sameynayaa cabaar ayaan daboolayaa marka uu biyaha soo dhameysto aan stepka labaad ee uu mari doono isla arkayna biyihii waa kana waa soo dhameystay sidan quruxda badanna wuu kusoo baxay bariiska furfur waaye maasha Allah bariiska haddii aadan biyaha ka badanin furfur ayuu kuu noqonayaa marka akhyaarteeda sharafta leh hadda waxaan sameynayaa stepkii labaad kama tago subaga haddii aan bariis karinayo subaga bariiska wuxuu siiyaa caraf dhadhan maasha Allah sad arkaysaa waxaan kusoo daray subag ayaan kusoo wareejiyay subag alaal subagi markaas aad haysatid ayaad isticmaalaysaa insha Allah waa kaasa bariiskii subag ayaan kusoo daray kadibna waxaan kusoo darayaa kalarka bariiska food coloring ama any color oo mataqaanay aad jeceshahay safaraan waaye ama yellow egg ayaan kusoo darayaa kalar alaala markaas kalarkii adigu aad xiiseynaysid oo aad jeceshahay ayaad ku darsan kartaa kalarka bariiska markii lagu darana wuxuu ka dhigaa qurux ayuu siiyaa ee dhadhan ma siiyo saa ogtihiinba laakiin waxaa la yiri oontiisa ku deeqdo waxaa la yiri wixii aragiisa ku deeqo ba oontiisana ku deeqdaa raalaha hadda maamaada qalday marka qurux iyo indhaha ayay soo jiidanaysaa waxaan aan ku daraayo waxa weeyaan waa kaarooto aan si xaliif u jarjaray kadibna aan saliid ku soo shiilay insha Allah kaarootadan bedelkeeda waxaad sameyn kartaa sida caadada ahba baradho ayaad sameysan kartaa kalarka fuurkana waad ku darsan kartaa waana soo shiilan kartaa aniga maanta waxaan isticmaalayaa waa kaarot ayaan isticmaalayaa insha Allah waan soo sameeyay bariiska waa kaasa quruxan ku dhahay waa qurux indhaha uu soo jiidanaya beautiful color maasha Allah tabaarakallah basashaydii aan soo shiishana waa taasa dusha ayaan uga soo darsanayaa
bariiskeeni sidaan caraftiisa waa la yaabay quruxdiisa waad u jeedaan dhadhankiisana hadana inii dhadhamiya maasha Allah tabaarakallah way kulleyba isha ayaad ka aragtaan waxaan rajaynayaa bariiskan fudud ee qaabkan fudud loo kariyay in aad ka heli doontid soona tijaabin doontid waa haddii aad tahay gabar xoogaa cuntada mataqaanaa karkarisa insha Allah kaftankaygu iska badan yahay qaarteed aada idin jeclahay akhyaaray saa arkaysiinba aluminiumka ama bacda afka wax looga xiro ee furnada wax lagu geliyo ayaan dusha kasoo saaraya waan huurinayaa cabaar insha Allah markaas kadibna waa soo guraya waa kaas halkaasaan ku huurinaya daboolkan saaraya dabkana meesha u dambeysa ayaan u geeyay adigu 15 minutes ilaa 20 minutes ayaan huurinaya waan ka tagay cabaar kadib waa kaas wuu isku huuray kor ay u soo kacaya xoogaa markaa huurisid bariiska maasha Allah tabaarakallah hadda waa soo guraya maasha Allah tabaarakallah ila wadaan siiyano siyaado waa kaas bariiskeeno qurux oo ku soo baxay macaan maasha Allah I hope inaad ka hesheen intaana aad ka dharagteen idinkana aad tijaabin doontiin adigaaga idaawanaya aad soo tijaabin doontiin bariiskana sida iisiga u kariyay waxa xagga ii saaran waxa waaye digaag ama chicken insha Allah iyo qudaar yariis sidii wixii allaale wixii markaas aad jeceshahay oo aad ku bixinaysidna waxba ma diidayo malaaleyga marka waxaan idin la qaybsanay bariiska yar carafta leh macaan indhahana u roon maasha Allah tabaarakallah ahna waa idin la qaybsanay aad u mahadsantihiin daawashada aana daawanaysiin walaalaha cusub ee ugu soo biiray waxaan leeyahay welcome soo dhawaada channelka Surbiyaan waxaan idin leeyahay haddii aadan subscribe ka taabanin subscribe ka taabo meesha guduudan ee geeska mobilkaaga ama computerkaaga guduudka ama rarka taabo garay ka dhig waxay ka caawinaysaa subscribe markastaba video kasta aan soo galno inuu ku soo dhaco gambalaalka nafur haddii aan ugu cusubtay tamarkii ku gooraysa please subscribe ka naga ilaalin gambalaalka nafuro assalaamu calaykum